السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دين سلامين دمانتين أصحابتا maanta iskuulka maaxadka waxbarashada la talinta iyo tababarka ee maaxadka Midsan ayaa waxaan ka bilaabaynaa casharada taxana noqon doono oo lagu soo kabi doono ardayda maaxadka wax ka dhigata Midsan Academy iyo bulshada kale ee Soomaaliyeed danaynaya inay Turkiga yimaadaan inay helaan aas yar amaba ku nool amaba maaragtaa waxbarasho yimid amaba ka shaqeeya sabab walba ay ku yimaadaan amaba iska daneeya luqadda Turkiga sabab walba noqoto dadka maaragtaa rabaan inay maaragtaa asaas yar ay ka bartaan luqadda Turkiga ayaan waxaan u diyaarin doonaa videoyaal gaagaaban oo garaamarada aan dul istaagi doono buugaan isticmaali doonana waa Istanbul Turkcesi ama luqadda Istanbul yani buugaagta Istanbul sida awgeed baan maaragtaa maalin walba waxaan soo gelin doonaa casharo kooban oo taxana noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo kaasoo idinka kabi doona ama haddaad arday tahay ama haddaad qof iska caadi tahay oo bulshada ah bilaabaynaa maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha shanaad 2020 haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka bilaabi doonaa alifbeetada afka Turkiga alifbeetada ayaan maaragtaa qoraynaa haddii Ilaahay yiraahdo alphabet af Soomaali qofkii baranaya wuxuu ka bilaabaa alifbeetada afka Soomaaliga qofkii English baranaya sidoo kale alphabets Arabi sidoo kale Swahili luqad walba baranaysa xurufteeda ayuu ka bilowdaa marka sida awgeed Turkigana sidaas la mid ah xuruftiisu waa xuruf Latin ah marka a b j ch d e f g yumuşak g waan sharaxi doonaa akhrinteeda waa ku laaban doonaa waxaan isku dhex darayaa xuruf yar iyo xuruf weyn hadhowtii si ay idinku kala cadaadaan intaan kusoo koobno marka xurufta haddaan akhriskeeda aan ka bilowno a b j meesha ingiriiska si ahayd baa j ah j kale waxaa jirta hoos far yar ka leh taana waxay noqonaysaa che d f g haddaa aragtay dhammaantood wax baa la raacinaya akhris ahaan marka loo eego g yumuşak g marka ugu horeysa xoogaa yar dhawaaqeeda inuu ku yaro dhib waa laga yaabaa waxba isku weerarin casharada dambe ayuu sii fududaan doonaa yumuşak g waa silent g oo kale xaraf kama bilowdo ama dhexduu gala ama u dambeeyaa laakiin xaraf uu ka bilowdaa ma jiro he i maaha i waa usoo soconaa waa ilkaad isku qabanaysaa she maaha jena maaha bleja meja leja English ahaan erayadaas oo kale sida loogu dhawaaqo che saddexdaba isku mid ma aha way kala duwan yihiin ka tan xoogo kuwii hore waa ka duwanta kuwii kale dhan oo he baa lahay ka le
degan tahay o e pe pe re re se se she she af Soomaali sh baa la isku darayay tan waa she se oo far yar hoos ka leh she te te u u u u u tuk 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 allah ayuu tuugayaa waa tuk hebel waa tuk oo kale ve ve ye ze kow iyo labaatan xaraf 29 xaraf alifbeetada turkiga isku jirkeedu waa 29 sideed shaqal ah kuwaan waxaa loo yaqaanaa ullu sideedaasi waxaa loo yaqaanaa ullu shaqalka vowels in English it's called vowels waa vowels iyo 21 shibane ah oo loo yaqaano consonants labaatan koodaas turki sideedaas turki waxaa niri waxaa la yihahdaa ullu 21 kaasna waxaa la yihahdaa ünsüz ünsüz marka haddaa iraahdo halkaan aan kasoo saarno kuwee bay noqon karaan kuwa sideeda shaqalka ah waa shaqal waa shaqal yaa kaloo shaqal ah waa shaqal waa shaqal waa shaqal o waa shaqal iyo waa shaqal xaggee kale waa shaqal iyo tan u dambaysa oo ah marka halkaas meeqan koobab gelinay koobabka buluuga ah waa 8 xaraf oo shaqal ah iyo 21 shibana ah turkiga xuruf baana dheeri ku ah xuruftee baa dheeri ku ah oo hore u maqal qofkii English af Soomaali yaqaana xuruf musan hore u arag buu ku arkaya maxaa kamid ah che oo kale yumshaq ge oo kale aan dhibic lahayn oo kale dhibic leh waa naqaanay laakiin aan dhibic lahayn ma naqaan maxaa kale she noocan loo qorayna ma naqon iyo intaanba waa ay nagu cusub yihiin laakiin xuruuf aan garan jirin oo halkan ka maqan baa jirta oo hadda aanan ku jirin kuwaasna kuwee bay noqon karaan x oo kale kuma jirto q kuma jirto w kuma jirto afturkii saddexdan kuma arkaysid hacdi booskeeda waxay isticmaalayaan h q booskeeda k w booskeedana v wallahi qofka markuu dhihi rabo wallahi buu leeyahay qofka turkaanka marka casharkeena koowaad inta inoo joogto waa alifbeetada casharkeena xiga wuxuu noqon doonaa Englishka markaad baranaysaan wax xasuusta a for apple b for book baa la dhihi jiray marka xurufta hoos timaada dhowr eray baan ka baran doonaa assalaamu calaykum